muuqaalkan ka horeeyay waxaan ku qaadanay wiggle expression ama waxaanu eegnay qayb ka mid ah expressionska oo aynu bilownay. haddaba ma samaysay oo practical ma ku samaysay? fadlan follow iyo like iyo subscribe iyo share intaba noo taaba platform kastoo naga daawanayso. haddii aad casharka ka heshay oo aan jeceshay inaan soo badinana commentiga hoose nagula wadaag faalladaada. maxaynu sameynaynaa haddaba? waxaynu sameynaynaa expressionka la yiraahdo loop out expression. maxaan sameynayaa? halkan maxaa yaala circle yar drop dheh, hadda day delete iga dheh, tu cusub ii samee. tii aan hadda saaray waan isticmaali karnaa, ma tu cusub noo samee wixii cusub caalamka jecel. halkan anchor point-gaaga north center-ka iga geebal muxuu halka la cararaya? control qabo barta double click si halka gee. waxaas waa khalad. selection tool-ka dooro, halkan keen shape-kaaga meelahan oo kale. halka marka timaado muuqaalkaaga bilowgiisa kaalay loop out-ka animation baa loo baahan yahay. saa darteed position-kii la soo bax, waxa timaada transform position-ka halkii frame dhigo. eeg cabdi yare ama caasha 1 second kaalay 1 second marka timaado maxaad sameynaysaa? koonaha kale gee. hadda day eeg halka ma dhigay, wareeg egal ku dhigay halka day. masha Allah, waar waxaan dee ease out iyo ease in soo ma taqaanid inta ku dhigi maayo midha. halka highlight garee key framesko right click siyo key frame assistant kaalayo ease dhaho graph editor ka kaalayo. halkan haddii ka yara fool xunta halkan ku dhufo oo halka haddana right click siyo speed graph ku doornaado oo halka zoom out yara dhaho. ma la yaabantahay ninkan niyow expression buu noo diray waxay key frameskan. sug haddii aad doonayso course-kan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online adigoo ku dhiganaya website-kayga tixi.com. sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso. ka faa'iideyso, kale xirfad cusub baro, naftaada u faa'iido wariya ama eeya idinku wixiinuba. marka haddii aad dinga daawanayso TikTok follow da saar, Facebook like iyo follow intaba de YouTube-kana intaba la xishoonaysa. halkan inagu soo celi halkan maxaad aragtay graph-ka halkan u yaala Soomaa laba line dhankanan de u yara qaatay aduu speed-ka soxode. speed-ka markaad habaysato shape-kiigu waa saan oo kale Soomaa koona kale speed ku tagaya. haddana expression ku tusaya hadaba cararin ay xanaaqinay sug ana ku jecel soo noqo. halka maaragtay maxaa yaala position-kii alta qabo. alta markaad qabato halka click markaad soo bartana ku banaan Soomaa. bal halka waxaad ku qortaa waxa la yiraahdo loop-ka maxaa taqaanaa? waa soo celceli Soomaa. halka maxaad ku qoraysaa loop out duration. marka halka doorto halka waxaad tidhaahdaa double quotation quarters way garanayaan. halka double quotation kuwan waa dooran kartaa ma garanaysaa, laakiin se ka ugu quruxda badan ee aad isticmaalaysaa waxa weeye ping pong. kubadda yar ee soo celceliyo maar ping pong dooro. iminkaan ku tusaya abadi kubadda maxaad ka dooni. halka bal ila daawo eeg dig adiga saaxiibka halka ku ciyaari kara day cabdi yare ama caasha adiga saaxiibka ama adiga saaxiibada barta ku ciyaari kara. midkiinba meel buu ka animate garaynaya. marka ku xaraabayso sida doonta ka yeel qaabka ugu wacan u samee expression-kan iyo kii horeba haddii aan daawan waxaan soo dhigi doonaa linkiga hoose ama description-ka xagga sarena waan ka soo muujin doonaa insha Allah. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka faa'iiday nagula wadaag commentiga, haddii kale aad ka faa'iidin laftirkeeda commentiga nagula wadaag. like saar, share dheh, gaadsii dadka kale. Thank you very much.